magaaladii kala qiimeynay waxaa noo soo baxday meesha ugu roon oo maanta macnaa isleenahay meeshaana wax ka heli kartay waxaa nala noqotay maqaayada galnay maqaayada ayadana macnaa waxaa naloo bilaabay boos ma ka banaano waa kasoo tagnay timajiraan tagnay wax timajir cilaanba tagnaba waana haa midaan ugu qoslaba waraa idinka wax kale ma ujeedin waa iska soo baxnay haddana baabuuriyada soo dhex galnay dalawarnimo iyo waxba haddana qiimeynay halkoo tagsi xitaa midkoo taajirka muufuraan ugu soo tuuri xitaa soomaalinimo bilaadanimo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkaan nala socotaan waa Neymar Boy official ma fahanteen magacaygu waa Lakish anigana magacaygu waa Somboy waa salaamantiina asxaabta dhammaantiina si kal iyo laab ah weliba laabta idinka salaanay halkaan nagala socotaanna waa Neymar Boy official teeda kale qiso yar aan rabnaa inaan ila wadaagno ma fahanteen qisadaas macnaha waa qiso ka hadlayso dhalinyarada dhan maaha macnaha mid anaga qaas noo ah teeda kale waxaa jirto gabdho macnaha aan jecelnahay xiriir aan wada leenahay sidaas ay tahay haddana macnaha ma nihin dad macnaha maanta hanti haysto mise dee heerkii la rabay oo macnaha u nool yihiin ma nihin ma fahanteen gabdhihii macnaha heer xitaa waxayna gaarsiiyeen inaan dhahan macnaha magaaladan gale shishilan xitaa macnaha waxle ya dacas xitaa macnaha magaalada kala imaada ma fahanteen marka magaaladii aan galnay adiga maalinka koowaad ilaa maalinka lixaad meel garaash aan ku laabanayna ma fahanteen meel garaash aan ku laabanaynay waxaana lahay biri soo laabta qaduu ku maqan yahay dalxiisuu aaday xariif garaashka la hawaa maalinba adi macnaha siina loo marmeerinayay oo macnaha boor waxaa ku dhignaa markaas meesha macnaha waxaa lagu shaqagalaa meesha free oo macnaha wax lacag qaadanaa ma jiro shaqaalaha maalinka toddobaada xirfada ka baranaysiin aqoon macnaha wax badhow waa mustaqbalka dambe wax ku anfaca adii macnaha meesha kala bixaysiin sidii ay tahay anaga macnaha wax walba macnaha muhiim ay noo ahaayeen ilaa dad macnaha lasoo diray dhinac jaceylkooda dhinac waalidkooda dhinac macnaha nafsadooda ahayn ma fahanteen marka magaaladii aan galnay maalinka toddobaad boor haddana waxaa lagu soo dhejiyey shaqaalaha cusub macnaha waxaa loo soo dhejinayaa lacag iyo waxaa loo soo dhejiyay adi lacag ku shaqagalahana ma fahanteen marka adiga lacagii markii la lahay 20 tolka oo macnaha xariifka meesha iska lahaa asaf soo galeen ani saaxiibkay gadaal la mariyo wixii gadaal la mariyo adiga isku lahan rajaal leedihiin waa nala qaadanaa la ilaa ma xitaa firiin xitaa maniga dareesa isku lahan waana lagu dhageystaa iska laabta labadiina qabiilka tiim ah laabta waa baxnay sidii aad tamaniin jimo magaaladaasi galnay magaaladii kala qiimeynay waxaa noo soo baxday meesha ugu roon oo maanta macnaha isleenahay meeshaana wax ka heli kartay waxaa nala noqotay maqaayada galnay maqaayada ayadana macnaha waxaa naloo bilaabay boos ma ka banaano waa kasoo tagnay timajiraan tagnay wax timajir cilaanba tagnaba waana haa midaan ugu qoslaba waraa idinka wax kale ma ujeedin waa iska soo baxnay haddana baabuuriyada soo dhex galnay dalawarnimo iyo waxba haddana qiimeynay halkoo tagsi xitaa midkoo taajirka muufuraan ugu soo tuuri xitaa soomaalinimo bilaadanimo waa ka weynay anagoo macnaha meesha ciil iyo fikir ila taagan meel aan ka bilowna garanaanahay haddana saaxiibkeeni kan waxaan u soo dhacday mataqaantiin saaxiibkii caliyaad koor taariikh oo hadal oo dhaan soo xasuusto wallahi billahi maanta alxumo saaxiibkii caliyaad wuxuu dhahan fahanteen wuxuu dhahay adduun halaysan waay waliya ilintaada ma cabtaa la dhahay fahanteen ilintaada waliya ma cabta maanta cabbi laakiin heer waxaa gaaray suuq markaa wareegno rafaad ilgo baahi gurigaa soo xasuusana marka gurigana biyo naga horeeya loolaha biyaa kusoo baxna biyo ku laabta marka wadina noqdaa dhaysiin wadankiina wax qabta dadkiina jeclaada war dadkiina jeclaada weysiine kumaanta biyo gada halkoo biyo nugu shaqaysan waay cunta xataa nasi digsiyaasha dhaqaynay waa in ka weyn maxaan jeclaanaa marka aad ugu xunahay wax maanta nagu dhacay anaga kelima dhalinyarada dhan ay ku dhacdaa qisooyinkan iyo wax kasii falxun ma fahanteen waa waxyaabo macnaha aan u qalmin dunidan duni sharaf lama saaxiibkan aliko markuu dhahay macnaha magaaladan inaa xaqaa kasoo dhacsatid waay budba macnaha qaade xoog iyo macnaha qababac waxa uga soo dhacso wallahi runtiisa ahayd marka soomaalinimada wax iskugu qabanayo wallahi maanta magaaladan wallahi waa naloo kala kicin lahaa anagana kulay wadanimadeena ku sii taagnaan lahayn laakiin maanta ka bilaabato wadanimini Soomaali maxaa jeclaanaa maxay noo qabteen galaas biyo maanta xariif macnaan doo xitaa xarfaanay maanta magaalka macnaa ku soo qaldanteen oo galaaskan biyo xitaa waa ka weyn ma fahanteen marka hatta discussion ugu dhaqanayo wallahi dhalinyarada maanta ku kacaan oo dhan macnaa wax unba ku soo kulli anaga waa soo aragnaa wax magaalada ka jiro ma fahanteen
marka wala aad iyo aad ugu xunnahay qisadan waa qiso micnaha khaas ah oo anaga maanta na qabsatay kulley maalin walba qisooyinka dhacan oo dunidan waa wareegto marka kumanaan qiso oo anaga iyo teen naga sii daran iyo kumanaan micnaha dhalinyaro sidaas oo kale ay u turjumaysan way jiraan marka wallahi aad iyo aad ugu xunnahay wax maanta nagu dhacay haddaan micnaha lamaana leenahay micnaha gabadhi waxay rabtaa guur mustaqbal si sharaf leh in loo guursado jaabkeenana shishil ma ku jirto ma fahanteen marka magaaladii aan u baxnana ujeedin waxa ka jirta qabiil iyo micnaha in lagu qoslo iyo inuu micnaha mid kale oo meesha u tagtidba shaqaaliya kaga horeeya oo shaqadaba ka cariisanaya intaas difaac micnaha xirnaa maanta waxa ka qiirada mataqaantaa mid dool u eg aad taxi fuulo oo raaxaysanayo anakin waa kana still no miro ya maxaa noo diiday marka taxiga markii lagu dhahay geesi waqtigii ciil dhadhaan u saaciday wallahi saas oo kale mid diiq weega taxi iska dhex fadhiya anagii shidnayna dii maanta u jeedin magaaladaas ya meel kursi kaga fadhiisan xitaa waa weyn wallahi marka indhuxumo intaasaba noogu filanba teeda kale waa kulley waa waqtigaa saacid unbaa dhihi karnaa kama xumin ma fahanteen waqtigeena anigana iska sugaynaa insha allah waxaan rajeynaynaa wax walba inay isbedelaan insha allah dee teeda kalena asxaabay waa qisadan waa qiso khaas ah waa nala jeclaan inaan nila wadaagno teeda kale ay dhoobina subscribe-ka share-ka like-ta marka qisooyin badan micnaha soo wadnaa oo jecelnaha walaalaheena soomaaliyeed inaan nila wadaagno kuwan micnaha soomaali markii la laho kulley waa dad wanaagsan way jiraan dad xunna way jiraan laakiin maanta intaan lasoo kulnay kulliga hal fiican ma ku jirin wallahi dadka fiican waxaan rajeynaynaa inaana daabataan kulley qisadeena wax unbaa kala bixi doontaan ma fahanteen marka insha allah dhima laha iska warheenaynaa qisadan markana qabsatay oo calolxumada oo wallaahi ilaa hadda aan la yaabanahay ma fahanteen ayadoo video ahaanna waa macnaha ayadoo video oo macnaha ka turjumaysana waan soo wadnaa marka haddaa rabtiin commentin uu reebo ayadoo video ahaan ficilkii wixii macnaha ayadoo nagu dhacayso oo nagu dhacday adinka inaa macnaha intusno ma fahanteen marka asxaabay anagana iskama hadlayno ma fahanteen dhalinyaro walbo oo maanta soo kacayso waddanka shaqo ma leh shahaadada macno ma leh ma fahanteen marka wallaahi waa dhalinyarada waxay ku sugan yihiin wax macnaha la yaab leh hadhow qofka dhalinyarada marka naftiisa oo waxan uu ku dhaco wax walbo dhibaato qofka qabsanayo ama uu macnaha ku kacayo waxa macnaha u horseedayso ficiladan xun ma fahanteen suuqa dhammaan maanta aan tagnay oo u tagnay inaan shaqaysano ama in maanta aan nafsadeena nolol maalmeedkeena wax aan kusoo bixino haddii macnaha maanta nolol diiday oo nagula taagsaday marka hadhow maxaa macnaha maxaa naga filin kartaan inaan wax xumaan ku dhaqaaqno buracad badeed mooryaannimo isbaaro dhib marka hadhow markii nala soo qabto oo ninkii waxa suubiyey waxaa macnaha dhalinyarada waxa suubinayso maanta aniga waxaan aaminsanahay inay macnaha bulshada si naxariis darre oo la dhaqmeen kadib wax fool xun ku kacay ma fahanteen iyo waqtiga ku adag xaalado ku xugan macnaha wax xun ay ku horseedeen ma fahanteen marka waxaa leedihin Soomaaliya is jeclaato wadankiina jeclaada dhalinyarada wadankiina soo kiciisin wadaniyaal noqdo maxaa wadaniyaal noqda halko maalin maanta ko bi ish wadayn la wadanka jeclaan la shacabkuna jeclaan la marka waji ka baan tusteen maanta inaan macnaha anaka intusno waa garan fahanteen maanta qoraxda arta ku baxnay cid marka ka bixinay ko biyo energy waxa uu ko biyo xafada ka cabnay koobka biyo ku soo laaban ma fahanteen marka dee waa dareemi kartaan maanta qofka kulay Soomaalida inta fiican inta xun kulay waa yihiin maanta wajiyaasha saarna wajiyo xun ahayn marka inta fiican la hadlaynaa inta fiican dhalinyaro anaka camale yaa macnaha arrintan haysta oo anaka u turjumayna ma fahanteen marka asxaabay xaaladda maanta ugu soo dhacday marka asxaabay waxaan leenahay maalin wanaagsan teeda kaleeto waxaan macnaha wax anaga khaas noo ah ma ahan dhalinyaro kumanaan haysataa maanta xaaladda u jeedaan macnaha waa xaalad oo kumanaan qof macnaha ka hadlayso oo dhalinyaro ay u badan yihiin ma fahanteen marka dii waxaan rajeynaynaa macnaha inaan waxyaabo badan oo iyadoo video ahaan xitaa macnaha muuqaalkaas aan u sameyno wixii comment macnaha dooqa iyo wax walba macnaha idinka iska leh comment aan nagu reebi kartiin ma fahanteen marka insha Allah sii socon doonaa subscribe share sara Naima boy official